oo ribada cantoobi oo bililqada xantoobi oo dhaca qaado oo ururi oo hu abayele laana waxa weeye mabaadiidii quluubta ku jirtay baa baaba'day oo ruuxan ka dhamaatay arrintaasi marka waa arrin muhiim ah waan arrin loo baahan yahay dadka mu'miniinta inay rumeeyaan arsaaqda rabbi subhanahu wa ta'ala saasa loo qaybiyay طريق xun marka wixii ilaahay noo qaybiyay inaan ku raadin waxa kale oo qaacido kale tan kaga gudbay ay tahay oo mawduuca doonayo qaybtiisa hore iyo muqaddimaadkiisa inaan kaga gudbo ruuxu markuu rizq raadinayo laba arrimood ha isku daro asbaabtii hal yimaado ilaahayna ha tala saarto dadaalkii la imow xamaalo ganacso beerta falo orod oo shaqe subaxdii kala haddana maca dalika dariiq xalaal ah wax ku raadinaya waxaad heli lahayd ilaahay u daayo natiijada rabbiga baa gacanta ku hayee allah tala saaro subhanahu wa ta'ala waxaadna ku tala gashaa allihi subhanahu wa ta'ala adoo uurka hooyo ku jira dhulumaatun ba'daha fawqa ba'din halka adoo ku jira allihi ku noolaystay nafta ku galiyay kugu irsaaqay adoon xoog lahayn adoon khibrad lahayn adoon waaye aragnimo lahayn adoon shaqaysanaynin oo ganacsanaynin allihi halka kugu irsaaqay subhanahu wa ta'ala markaad xoog leedahay kadib waa ku irsaaqi karaa tala saaro marka rabbiga subhanahu wa ta'ala hana ka degdegin ku kalsoonow rabbiga subhanahu wa ta'ala wuxuu ku qorsheeyo ku qadaray inay ku soo gaadhayso ku qanacsanow sida nabigeena sallallahu alayhi wa sallam حديث صحيح وكله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا هداد إلهي أطلع سارا الله إذن سيدا الشمبروه أطلع سارتان وكله ألو إذن إرزاقي لها سيدا الشمبرها وإرزاق وكله شمبروه محي سميان صباح دي بيك اللهان أيوغو قاچيسان أو بقلالا galabtiina way soo noqdaan ayagoo dheregsan oo kaliyuhu u fidsan yihiin xamel ma dhigtaan mana kaydsadaan kalsoonida rabbigood ay ku qabaan subhanahu wa ta'ala baa kayd oo dhan kaga filan oo kayd ka weyn miyaa jira inaad rabbi ku tiirsantahay subhanahu wa ta'ala khazaa'intiisa waaweyna aad rajo ka qabto oo wax ka sugayso aadna rumaysantahay kayd ka weyn ma jiro kaydka shimbiruhu waa ka nabigu marka wuxuu ina barayaa salawaatu rabbi wa salaam alayhi xaraamha aadine dariiq xuno ilaahay uu nacab yahayna wax ku raadinine waxa samaysa allah ku kalsoono subhanahu wa ta'ala inuu wax ku siinayo haday wax ka dib dhacaana waa lagu soo wadaay hadagdag hasugi wayn saasu nabiguna barayaa salawaatu rabbi wa salaam alayhi haday noqon weydo oo ay noqoto inaynu xaraamta quudanno oo dariiqya laalaaba aan u marno oo been iyo khiyaano u marno oo riba aan u marno oo aynu u marno dhac iyo bililiqa u marno oo aynu u marno intaas soo jid aynu u marno waxa dhacaysa inaan adduunyo aakhiraba khasaaro dhibaatooyinka iimaan karana waxa kamid ruuxa ku iimaan kara xaraam cunaha kow horta ilaahay bariyadiisa aqbali maayo khasaare ka weyna ma jiro dadaalkaaga aad samaynaysi cibaadadaadii iyo amalkaaga iyo ducadaada iyo in laga aqbali waayo fi hadith abi hurayra fi sahih muslim nabigu sallallahu rabbi wa sallam alayhi wa kayri inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ilahi wa wanaagsan wa halal oo wanaagsan waxaan ahayna ma aqbalo wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin allana mu'miniinta wuxuu amray wuxuu rususha amray wixii rususha la amray baa mu'miniinta la amray oo ilaahay muxuu rususha amray ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan rusushi halaasha cuna amal salih oo ilaahay raali galiyana la imaado sameeya mu'miniinta maxalli ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum mu'miniinta waxaan idinku irsaaqnay wixii xalaal cuna wixii mu'miniinta la faray rususha la faray iyo mu'miniinta wixii la faray waa isku mid
markaasaa wuxuu yidhi abu hurayra uma dakara arajula nebigu wuxuu sheegay markuu intaa sheegay kadib nin buu sheegay ruux yutiilu safara safar dheer gelaya socdaal dheer buu gelaya ashcatha aqbar waa basaasan yahay waa bus iyo boodh badan yahay rafaadkii safartaa ka muuqata diiftii socdaalkaa ka muuqata yamuddu yadayhi ila asamaa markaasuu labada gacmood samada u taagaya wuxuu leeyahay yaa rab rabbiyow carruur isii rabbiyow xoole isii rabbiyow janno isii rabbiyow ridlo isii gacmuhuu taagaya nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam wamطcamuhu xaraam wamalbasuhu xaraam waqudiya biاlxaraam faأnaa yustajaabu lahu buu nabi sal alla alay wasalam ninka saas cuntadiisu waa xaraam cabbitaankiisu waa xaraam labiskiisu waa xaraam isagana waxaaba lagu koriyey oo uu ku koray oo hilibkiisuba ku dhashay waa xaaraan kaas see baa wax looga yeelay buu nabigu sal alla alay wasalam kaas see wax looga aqbali su'aal istibcaad wey istifhaam istibcaad wey kaa in wax laga aqbalaayo waa fog tahay wey wax dhow ma ah ma sahlana u fiirso afar sababood oo afartaba ilaahay ducada ku aqbalo yuu isu geeyey afar xataa mid keliya ma isticmaalin waa midda koobaadee waa musaafir wallahu tabaaraka wa tacaala laa yaruddu dacwata almusaafir ruuxa socotada baryadiisa alla ma soo celiyo ninkanina waa musaafir weliba safar dheer buu galay waa sababta labaad waa ashcaf aqbar waxaa ka muuqata rafaad iyo basaas iyo diiftii safartaa ka muuqata addoonku markuu rafaadsan yahayna ilaahay baryadiisa ma soo celiyo rubba ashcafa aqbara low aqsama cala allahi laabarahu nabigu waa ka yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa badan mid basaasan oo bus badan oo rafaadsan oo iridda aan laga furaynin oon hadalkiisa la maqlaynin oo ilaahay hadduu ku dhaarto wuxuu ku dhaartay allah subxaana wa tacaala u fulinayo ashcaf aqbar ta saddexaadii sababta saddexaadii waxa weeye yamuddu yadayhi ila asamaa gacmuhuu taagayaa nebigana waxaa ka sugan sal alla alay waslam inuu yidhi addoonku markuu rabbigii gacmaha u taagto alla waa xishood badan yahay waana kariim deeq badan addoon gacmaha u taagtay gacmihiioo madhan alla kuma soo celiyo wuu ka xishoodaa subxaanahu wa tacaala qodobka saddexaad iyo sababta afraad baan dhihi laha ee uu ku daray waxa weeye ilaahay magacyadiisa wan wanaagsan buu ku baryayaa asmaa'ihi alxusnaa wuxuu leeyahay yaa rab ilaahayna asmaadiisa ruuxii ku barya oo ugu tawasula baryadiisa waa aqbalaa walillaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha imise sabab buu isu geeyey afar sababood afartaas sababood isagoo isu geeyey oo mid walba baryada lagu aqbali lahaa haddana nebigu wuxuu yidhi sal alla alay slam waxba laga yeeli maayo waxbana laga aqbali maayo maxaa diiday waa su'aal maxaa diiday in baryada laga aqbalo waxaa diiday in afartaas sababood maanic ka xoog badan baa ishortaagay maxaa ka xoog badanoo ishortaagay xaaraan buu cunay waa dharkiisu waa xaaraam cuntadiisa uu ku soo quracdee ku qadeeyey waa xaaraam gurigiisu waa xaaraam hantidiisu waa xaaraam gaadiidkiisu waa xaaraam cabbitaankiisu waa xaaraam kaasee wax looga yeeli marka ruuxa xaaraam cunaha ah wixii uu sameeyey camalkiisa iyo cibaadadiisa iyo baryadiisu waa marduud intaasaana khasaaro ugu filan wa wallaahi uma wallaah haddaan wax kalaba lagu samaynin ee kasabkiisii uu samaystay keliyata lagu diiday intaasaa khasaaro ugu filan waxaa dheer intaa xaaraamta la siiyey ruuxa ee uu kasbaday barakadaa laga qaadaya waa ku gubanaya xoolo badan oo haddana barakaysnayn